suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee dhinaca iyo warbaahinta waxyaabaha ay ka qorayaan haddii aynu fiirino kooxda Man United ayaa waxaa la tilmaamayaa in ay qorsheynayso lacago badan oo ay suuqa kala iibsiga ciyaartoyda inay geliso maadaama la tilmaamay hadda in macalinkoodii Ten Hag uu doonayo ayaa la yiri in maalgelin xoogana lagu sameeyo kooxdaasi oo iyadu guuldarooyin waaweyn ay kasoo gaareen koobabkii lasoo dhaafay ee xilli ciyaareedkani dhinaca iyo Barcelona madaxweynahoodii Joan Laporte waxa uu u sheegay wargeysada ka soo baxa dalkaasi Spain in aysan fahmi karin sababaha ku qasbaya in ciyaaryahankoodii Gavi wakiilkiisa uu dib u dhigo in laga saxiixo waqti dheer oo heshiisa ciyaaryahankaasi balse waxa uu tilmaamay in ay sugi doonaan ilaa iyo war uu ka soo yeero wakiilka ciyaaryahan Gavi Luka Modricna kubad qaabeyaha kooxda Real Madrid waxa uu sheegay in uusan qorsheynaynin in waqti dheer uu la sii joogo ama heshiis dheer uu la saxiixo kooxda Real Madrid balse waxa uu tilmaamay in uusan doonaynin isaga oo qoslaya qaabkii uu sameeyay Kylian Mbappe ciyaaryahanka PSG oo ciyaara waxa uu tilmaamay in uu rajeynayo in kooxdiisu aysan doonaynin waxa hadda socda balse waxa uu warbaahinta u sheegay in uusan wax dhibaato ku qabin haddii uu saxiixo heshiis gaaraya ilaa iyo 2023 waxaana uu ka fiirsan doonaa ayaa la yiri kadib ciyaarta kama dambeysa ee fiinaalaha Champions League marka la ciyaaro madaxweynaha kooxda Lazio Lotito waxa uu sheegay shabakada Sky in ay kooxo badan ay qorsheynayaan inay la wareegaan Sergej Milinkovic-Savic ka oo uu tilmaamay in ilaa hadda aysan jirin lacago ay ku doonayaan maadaama uusan suuqa oolin waxa uu sheegay madaxweynaha kooxda Lazio in ay jiraan kooxo ilaa iyo 5 gaaraya kuwooda ugu waaweyn ee caalamka balse waxa uu tilmaamay inay ku dagaalami doonaan ciyaaryahankaasi Hector Bellerin oo isagu u ciyaara kooxda Real Betis ayaa waxa uu sheegay in ay cadahay xilligani inuusan qorsheynaynin mar kale in uu dib ugu laabto Arsenal waxaan rajeynayaa oo aan jeclahay inaan baaqi ku sii ahaado ayuu yiri kooxdeedii Betis hadda waxaan haysaa ayuu yiri ilaa iyo 2 bil waxaan doonayaa ayuu yiri in xal wanaagsan aan gaaro sidoo kale waxa uu tilmaamay in uu diyaar u yahay in uu dadaaliyo sidoo kale guulo badan uu la gaaro kooxda Real Betis macalinka waa madaxweynaha Sevilla Castro waxa uu xaqiijiyay in ciyaaryahan Anthony Martial uu dib ugu laaban doono kooxda Man United Martial ayaa isagu waxa uu amaah ugu ciyaaray kooxdaasi Sevilla xil ciyaareedkan dhamaaday qayb ka mid ah waxaana hadda uu tilmaamay inuu dib ugu laaban doono yaaliyay kooxdiisii Man United Borussia Dortmund waxa ay sameysay yaaliyay saxiixoodii shanaad oo ay kula soo wareegaysay yaaliyay goalkeeperka amaba goolahayaha kooxda Hertha Berlin Marcel Lotka heshiiska waa la gaaray heshiiska kale ee isagu gaar ahaan uu saxiixi lahaana waa uu saxiixayaa la yiri kaliya waxaa dhimanaya la yiri in labada dhinacba ay si wada jir ah ay maanta ay ugu dhawaaqaan in heshiiskaasi la dhameystiray Premier League dalka Ingiriiska haddii aynu fiirino waxa ay iyaguna ay meel mariyeen in la iibsaday kooxda Chelsea ee ka ciyaarta Premier League dalkaasi Ingiriiska dowladda UK ayaa iyadu waxa ay meel marisay rabitaanka iyo sidoo kale codsigii uu soo gudbiyay ayaa la yiri bilyaneerka isagu iibsaday kooxda Chelsea aveeda dalkaasi Ingiriiska ayaa ku dhawaaqay in kooxdaasi hadda la meelmariyay iibsigeedii ciyaaryahanka kooxda Chelsea u ciyaara Mason Mount ayaa isagu waxa uu ka doodi doonaa heshiiskiisii cusub oo uu saxiixi doono kooxdiisa Chelsea bilaha soo socda waxaa la tilmaamayaa in la qorsheynayo in ciyaaryahankaasi heshiiska laga saxiixo isaga iyo wakiilkiisii ayaa laga warsugayaa sidoo kale waxaa jirta dhowr ciyaartooy oo iyagu ka doodi doona ayaa la yiri waxa ay mustaqbalkoodii ay ka yeeli doonaan marka ay madaxda ugu sareysa naadiga ay la kulmaan ciyaartooydaasi waxaa ka mid ah ciyaaryahan Kante
Jorginho, Azpilicueta iyo sidoo kale Alonso. kooxda Bayern Munichna waxa ay qorsheynaysaa ayaa la yiri in ay heshiis ay ka saxiixdo Ryan Gravenberch. waxaa la tilmaamayaa in hadda heshiiska uu ku dhow yahay oo ay la gaaraysa ayaa la yiri kooxda Ajax in la dhammaystiro. waxaa sidoo kale jirta ayaa la yiri in labada dhinacba ay si weyn ay uga doodayaan sidii heshiiskaasi loo dhammeyn lahaa. bishii Abriil ee lasoo dhaafay ayaa waxaa la isku gartay ayaa la yiri in ciyaaryahankaasi uu usoo wareego dhinaca iyo Bayern Munich. haddii aynu fiirino dhinaca iyo Faransiiskana, Orlean Tchouameni ayaa waxaaba la tilmaamayaa in ay la soo xiriireen ayaa la yiri saaxiibadiisa ka ciyaara kooxda Real Madrid, kuwaasi oo doonaya ayaa la yiri in ay kooxda Real Madrid ay geeyaan. waxaana la tilmaamayaa hadda in lagu baadigoobayo lacag dhan 50 milyan oo euro ah. ilaa iyo hadda wax oo war ku saabsan heshiis in lala furay ama wadahadal ma jirto. Real Madrid waxa ay qorsheynaysaa in ciyaaryahankaasi Lille u ciyaara inay la soo wareegto, maadaama Mbembe uu diiday ayaa la yiri in uu isagu ku biiro kooxda Real Madrid, horeyna ugu saxiixay ayaa la yiri heshiis waqti dheer ah kooxdiisii PSG.